iyada oo doorashada madaxtooyada Soomaaliland looga dareeray guud ahaan dalka ayaa waxa ay saaka dadweynaha reer Gabiley uu waagu ugu bariyay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer si ay ugu codeeyaan musharaxa ay taageersan yihiin saddexda musharax ee u sharaxan madaxweynaha Soomaaliland haddaba telefishinka caalamiga ah ee SBC-TV oo u kuurgalay habsami u socodka doorashada ee gobolka Gabiley ayaa wax ka weydiiyay dadka ku jira safafka ee diyaarka ah inay codeeyaan iyo kuwa soo codeeyayba saaka waxaa soo taagay shantii barkii markaa salaada subax ka soo baxay waxaan codkayga u soo dhiibtay si aan codkayga u dhiibto markaa waan soo codeeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo doorashada madaxtooyada insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhinaca soo saaro magacayga Faxaan Cabdilaahi muwaadin u Soomaaliland waxaan ka codeynayaa maanta gobolka Gabiley gaar ahaan goobtan ay Gabiley jee in kuwa soo codeeyo taa inaas ka masaxay qadkii markaas fiican oo soo noogu socota insha Allah khayr badan heshiina ma Soomaaliland amnigu aad iyo aad u fiican si fiican baa amnigu fiican yahay ummadda iyagaas nadaaminaya qof walba qof dadka wala ixtiraamaya qof walba qof uu ka weyn yahay ixtiraamaya dadka naafada wala ixtiraamaya sideynaya dhinaca kalena magaalada Wajaale ee xarunta ganacsiga Soomaaliland ayaa iyadana saaka looga dareeray doorashada madaxtinimada Soomaaliland sida aad u wada arkaysaan iminka waxa ka socota warbixintii degmada Wajaale iminka waxaan taaganahay dugsiga Mahdi Cali oo ay si fiican uga socoto degmadu ilaa iyo hadda sidii loogu talagalay ayay u socotaa wax dhibaato ma jirto nabadgelyadu waa caadi حبل محاجنسو إنه سيدي ما وعضينيان آدي آدنا ونقوم هنقنا سيدا في عن آدت نظام كي يعرفها ونعلنيان أنت أستاذ والله أركي السلام واحد سعوته عضينتي أيها سعوته وساكن قبل عوانتي تضبطي dadka iyo wal arkisaaniyo wuxuu hayay buuqayaan iyar baa jirta ruuxantii intaana kumishka ayaan ku dhalinayna gaabis farabadan ayaa jiro xagga inamada waxa weeye intaasina waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay inamadu gacan dhaqsadaan oo ay bulshada ay u gacan dhaqsadaan intay doonaan nin walba xor buu yahay codkiisa ciduu doona ugu ridayaa laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida nabadgelyada leh ee nidaamka ee fiican ee ay u codeynayaan codka socod waxa kale aad u hambalyeynaya guddiga komishanka oo hawlan weli la arag Afrikaba ka qabtay waxa kale oo hambalyeynaya salaamaya dhammaan ciidamada qaranka iyo salaamaya waxa ilaahay mahad ka gaadhay waxa ilaahay wal mahadnaqayna mahad labaadeed waxaan leenahay aan waxaan hay xisbiga kulmiyaan yaan codeeyay saakin dhixida codeeyay waxaan codeeyay kulmiye dhalinyarada waxaan sheegay inay xisbiga u codeeyaan insha Allah waxaan kaloo hor sheegay in nabadgelyada la ilaaliyo amniga waa Cabdirashiid Baalgoray SBC-TV gobolka Gabiley.